ማደግ ያለ ይመስላቸው ግለሰቦችና ቡድኖችም ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። ilaa iyo maanta waxa meelaha qaarkood ka socday marxalado horay looga gudbay oo gabobay oo aan loo baahnayn isla markaana waqtigoodu dhacay marxaladahaasina waa kuwa horseeda isku dhacyo bulshada dhexdeeda ah oo dhiig ku daadanayo isla markaana naf iyo maalba lagu waayay gaar ahaan shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya waa kuwa ay xaaladaasi saameysay oo si arxan darro loo laayay arinta dhacdayna ma aha mid ku eeg dadkii fal dambiyeedkaasi sameeyay oo kaliya maxaa yeelay waxa jira dad iyo kooxo iyagu hawshan fulinteeda ka qayb qaadanaya laakiin meesha aan joogin oo ka durugsan halka ay wax ka dhacayaan isla markaana dabka sii shidaya oo u maleynaya inay dhimashada dadka iyo burburka bulshadu tahay mid darajo lagu gaadhayo isla markaana baasaboor ku rushaynaya oo kibriidkii wax lagu shidayay iyo xaabadii dabka lagu shidayayba soo diraya si ay xaaladdu faraha uga baxdo oo ay bulshadu isugu dhamaato marka kuwaasoo waxa idin fiican inaad hawshan faraha kala baxdaan maxaa yeelay annagu waxaan rabnaa inaanu shacabkayaga dalacsiino oo aan annagu darajadooda mid ka hooseysa qaadano laakiin ma doonayno inaanu shacabkayaga ciil iyo murugo badno oo aanu annagu cirka isgaarsiino sidaas darteed wax kasta oo dhibaato horseed u ah annagu ma aqbalayno haba yaraadee maxaa yeelay waxa maanta yari sida uu isku biirsanayo berri uu weynaanayaa wuxuuna noqonayaa mid berri marka dib loo eego taariikhda mugdi geliya oo laga shalaytoodo si ayna haddaba arrimahaasi foosha xuni iyo marxaladahaasi qadhaadhi ee mustaqbalka bulshada mugdiga gelinaya u sii soconin waa in waxgaradka bahda hal abuurka fanaaniinta iyo wixii la halmaala ka waantoobaan waxyaabaha meelka dhaca ah ee qalbiga dadka cilada gelinaya kadibna isku dhacyada horseedaya waana inay ku tallaabsadaan waxyaabaha kala duwan ee bulshada nabadaynaya ee wanaagga ka hadlaya markaan sidaas leeyahayna uma jeedo labada deegaan ee Soomaalida iyo Oromada oo kaliya ee waxaan ka hadlayaa meelaha ay isku dhacyadu ka jiraan oo dhan ee ay ka mid ka yihiin shucuubta koonfureed iyo waqooyiguba waxaana leeyahay arrimahaasi faa'iido uma laha hadafka aan hadda tiigsanayno iyo weliba geedi socodkeena horumarineedba maxaa yeelay wax faa'iido ah oo dagaaladaasi iyo isku dhacyadaasi laga gaadhaa ma jiraan waqti kastana dad baa dhimanaya mar kastana waxay dhibaatadu ku dhacayso ee dhimanaya dadka masaakiinta ah looma baahna inaynu Facebook wax ka aragno oo aynu dhimashada dhacday ka sheekayno ama adisaba gudaheeduna intaan fadhiisano aan hadal hayno laakiin waxaa loo baahan yahay inaynu arrimaha dhacayna ka danqano maadaama ay dadka saboolka ah ee meelaha kala duwan jooga innagayna aaminsan yihiin isla markaana innaga wax naga sugayaan dhibaataduna ma aha inay iyagii sidaas ahaa uun ku habsato markaas si ayna xaaladani u sii faafin oo halkaas uun lagu joojiyo isla markaana ayna hantida shacabku u khasaarin dadkuna ayna wax u noqonin waxaa loo baahan yahay in dadka waxgaradka ah kuwa cilmiga leh kuwa xoogga leh iyo kuwa hantida lihiba istaageersadaan oo ay u liyadiirka noqdaan kadibna si wada jir ah u wada howlgalaan si nabadda salka loogu dhigo oo looga baxo dhibaatooyinka khasaaraha leh inta badanna waxaa soo noqnoqda oo la arkaa in Oromada amxaarada Soomaalida shucuubta koonfureed iyo meelo kaleba ay wax ka dhacaan waxaana loo baahan yahay in dhammaantoodba la janqaadaan horumarka hadda socda ee midowga horseedka u yahay laakiin looma baahna in maanta hoos loo noqdo oo la soo celiyo marxalada daciif ah oo waayo hore laga gudbay oo ay kooxo yari wataan isla markaana waqtigoodii dhacay marka dadka xaaladahaasi ku jirow bal intaad meel istaagtaan oo aad naftina la tashataan wax isweydiiya maadaama oo maanta dadweynuhu isku raaceen hirgelinta nabadgelyo buuxda walaalnimo isjacayl iyo midow quwad leh maxaa yeelay midnimo wax loo dhigaa ma jirto sidaas darteed bal intaad dareenkiina xakamaysaan u jahaysta dhanka wanaagga iyo horumarka sababtoo ah inaad rabshado aloostaan oo aad dadka isku dhufataan ama aad kooxa isku dhufataani wax cusub oo maanta yimid ma aha ee waa wax soo jiray oo maantana jira sidaas darteed inta aad wax waayo hore la dhaafay oo soo jireen ahaa soo celinaysaan waa inaad soo saartaan wax cusub oo nabadda ka qayb qaadanayo oo bulshada wanaagga u horseedaya haddii aad sidaas samaysaan oo aad wax wanaagsan soo saartaan wixiinu wuxuu noqonayaa wax idinka iyo bulshadaba anfaca marka waxaa loo baahan yahay inaad dareenkiina xakamaysaan oo aad faraha kala baxdaan bulshadana aad isku dhufanaysaan ee isu cunaysa kadibna aad u dhaqaaqdaan hawlaha ku saabsan nabadaynta shacabka iyo dhisidda buudooyinka nabadda intaasi kadibna waxa uu sheegay Raizal wazaare Dr. Abiye Ahmed inay jiraan dad aad u tiro yar oo ku hawlan sidii ay nabadda cirka ugu lalin lahaayeen ee ay shacabku isugu dhici lahaayeen sidaa darteedna loo baahan yahay inay maamulada labada deegaan ee Soomaalida Itoobiya iyo Oromadu isu yimaadaan oo ay ka wada hadlaan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda hadda ka taagan iyaga oo kaashanaya aqoontooda iyo xirfadooda kadibna qabta shir weyn oo loo wada dhan yahay oo dhanka bulshada oo lagu turxaan bixinayo wixii dhacay isla markaana salka loogu dhigayo nabadda bulshada labada deegaan waa deegaanada Soomaalida iyo Oromada የሶማሌና
የኦሮሚያ ክልል አመራሮች ህዝብን ከህዝብ በሚያቀራርብ ስራና ጉዳዩ ከየት እንደተነሳ ወዴት እንደሚያመራ በእውቀት በኢንፎርሜሽን ላይ ተመሰረተ ውይይት እንድታደርጉ ህዝብን ከህዝብ በሚያቀራርብ ስራ ላይ እንድታተኩሩ አደራ እያልኩኝ አሁን እያገኘን ባለነው መረጃ የሶማሌና የኦሮሞ ህዝብ በሰላም እንዳይኖሩ የኦሮሞና የአማራ ህዝብ በሰላም እንዳይኖሩ የአማራና የትግራይ ህዝብ በሰላም እንዳይኖሩ ደቡብ ውስጥም የሲዳማና የወላይታ ህዝቦች በሰላም እንዳይኖሩ ጥረት የሚያደርጉ ጥቂት ግለሰቦች እዚህም እዚያም አሉ maamulada labada deegaan ee Soomaalida iyo Oromada waxa looga baahan yahay inay ka wada hawl galaan oo ay ka wada xaajoodaan qaabkii shacabka labada dhinac la iskugu soo jiidi lahaa ee loo walaalayn lahaa loona ogaan lahaa waxa dhacay sida ay ku yimaadeen iyo dhanka ugu socdo iyagoo adeegsanaya cilmigooda iyo khibradooda isla markaana ka duulayo xogta dhabta ah ee jirta waxaanan idinkula dardaarmaya inaad fiiro gaar siisaan walaalaynta labada shacab xogta haddana soo gaaraysa iyo warbixinta aan helaynaana waxa ay sheegayaan inay jiraan dad aad u tiro yar oo halkan iyo halkaasiba kala jooga oo ku hawlan inay shacabka Soomaalida iyo Oromadu heshiinin oo aynan nabad ku wada noolaanin oo aynan shacabka Oromada iyo Amxaaradu nabad ku wada noolaanin sidoo kalena ay shacabka Amxaarada iyo Tigreegu nabad ku wada noolaanin isla markaana qoomiyadaha ku dhaqan shucuubta koonfureed ee Sidaamada iyo Walaytuhu nabad ku wada noolaanin sidaa darteed maadaama aan shalayba isku dayay inaan arrintan ka hadlo maantana waan ku celinayaa hadalkooda waxaanan leeyahay dadka tirada yar ee isku dayaya inay shacabka qalalaase geliyaan waa inaan ka badanno oo aan ka xog roonaanno oo aan weliba hadhayna maadaama aan ka badannahay si ay ficiladooda xunxumi u noqdaan waxaan waxba ka jirin oo iyagu uun hungoobaan hawshooda waxa kaloo aan idinku adkaynaya inaad isku daydaan inaad meesha ka saartaan ficilada khaldan ee ay dadka tirada yari ku doonayaan in wax lagu dilo oo waxna lagu boobo haddii aad awood u yeelan weydaan wax ka qabashada arrimahaasi waa inaad kasbataan hadalhayntooda iyo ka qayb qaadashadoodaba oo aydaan haba yaraatee wax gacana siinin ra'iisul wasaaruhu isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ciidamada difaaca qaranka iyo booliska federaalkaba ugu baaqay inay gacanta ku soo dhigaan dadka tirada yar ee ku dhuumaalaysanaya goobaha ay rabshaduhu ka jiraan ee ku hawlan iska horkeenka iyo khasaare u geysashada shacabka walaalaha isla markaana soo qabashada dadkaasi u maraan wadiiqada saxda ah oo aan waxba u dhimaynin dadka kale ee aan waxba ka ogeyn hawshaasi isla markaana adeegsadaan xirfadooda iyo cilmigooda qaniga ah የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እንዲሁም የፌደራል ፖሊስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በየትኛውም ቀጠና ህዝብን ከህዝብ በሚያጋጩ የሰው ህይወት ከሚያጠፉ እና ከሚያስጠፉ ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉ ግለሰቦችና ቡድኖች ለህግ ፊት እንድታቀርቡ መሃል ገብታችሁም ያጋጠመ ያለውን ችግር ረገብ እንዲል ሀገራዊ እና ህገ መንግስታዊ ኃላፊነታችን እንድትወጡ wasaaradda ciidamada difaaca qaranka iyo booliska federaalkuba laga bilaabo saacadan hadda joogno waa inay ka howlgalaan meel kasta oo isku dhac ka jiro waana inay gacanta ku soo dhigaan oo aad sharciga hor keentaan dadka iyo kooxaha farakoturiska ah ee shacabka iska hor keenaya ama isku dilaya ee dhimashada horseedaya sidoo kale waa inaad shacabka isdilaya kala dhex gashaan oo aad xaaladda hadda taagan dejisaan isla markaana ka soo baxdaan waajibaadkiina ciidannimo ee dastuuriga ah iyo weliba midka wadaninimo wakhtiga aad hawshaasi qabanaysaanna waa inaad si habsami leh u martaan wadiiqadii saxda ahayd si uuna howlgalkaasi u noqonin mid isna khasaare kala keena waana in aad xirfadiinna iyo cilmigiinna qaniga ah adeegsataan idinka oo ka duulaya warbixinta saxda ah iyo xogta dhabta ah ee aad heshaan dadkuna inay wax noqdaan ma aha hantiduna inay burburto ma aha marka aad howlgalka samaynaysaan sidoo kale inay dadku wax noqdaan looma baahna ee waa inay xaaladdu caadigeedu ku soo noqotaa idinkoo haba yaraatee wax waxyeello ah geysanin waxaanan idinku dardaarayaa inaad sharaftii iyo maamuustii aad ka ciidan ahaan lahaydeen ee laydinku yiqiinay la soo baxdaan oo aad shacabka dhexdiisa nabad ka dhalisaan